markaad eegto sidoo uu dhisan yahay qasriga ay ku magacaaban yihiin ama se u ah xafiiska waa mid u dhigma ku qasri madaxtooye oo kale se ma aha mid loogaga shaqeeyo sidii loogu talagalay iyo adeegyadii loo dhisay dhismahaasi aanu dhaadhaco tuducda warbixintayda dalada dhalinyarada Somaliland ee magaceega marka la soo gaabiyo loo yaqaan Soonyo waa mid loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan guud ahaanba geeyigani Somaliland 15kii bishii aynu ka soo gudubnay October isla sanadan 2015 waxay ahayd markii tartankii isreebreebka gobolada lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium kuna yaala koonfurta magaaladaas gaar ahaan xaafadda Axmed Dagax bilowga maalintaasi laguma arag mas'uuliyiinta ugu sareeya dalada dhalinyarada Soonyo 15 cisho oo uu socday tartankaasi maalinna may ahayn kuwa ka soo muuqday goobtaasi sidaasi si lamid ah iyaguna waxa dhinaca kale ka socday ciyaaraha fudud iyo waliba ciyaarta loo yaqaan kolayga ama basketka 12kii bishan aynu ku jirnay November oo ku beegneed maalintii Sabtidii waxay ahayd maalintii uu soo xidhmay tartanka ciyaaraha gobolada ee ka socday magaalada Hargeysa maalintaasna laguma arag isla mas'uuliyiinta Soonyo iyadoo mashaariicaha kala duwan ee loogu talagalay dhalinyarada ku dhaqan guud ahaan dalka la hoosgeeyo isla daladaas haddana ma aha kuwa ugu shaqeeya sidii loogu talagalay daladan ayaa iyadu noqotay mid baalmartay ujeedadii iyo tuducdii loo aasaasay waana mid loogu ololeeyo xisbil xaakimka talada dalka haya ee kulmiye Siyaad Umar Ali waa gudoomiyaha daladaasi waana shakhsi ka soo jeeda gobolka Awdal ma aha mid ka qayb qaata horumarka dhalinyarada gobolka iyo waliba kuwa kale ee Somaliland Jaamac Xuseen Jaamac Dude magaalada Boorama